wardegdega saacadii u dambeeyay waxa gobolka Sanaag ka socday dhaqdhaqaaqyo u dhaxeeya ciidamada dawlad goboleedka Waqooyi Bari iyo kuwa Somaliland halkaasi oo gaar ahaan xirigaabo ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo military iyo ciidamada dawlad goboleedka Waqooyi Bari ay doonayaan inay halkaasi ay kula wareegaan iyadoo saacadii u dambeeyay halkaasi si dhufeys ay isugu hor fadhiyeen ciidamada dawlad goboleedka Waqooyi Bari iyo kuwa Somaliland markii halkaasi ay joogeen ciidamada Somaliland hogaamiyo taliya ciidanka Somaliland uu amar ku siiyay ciidamadiisa in halkaasi ay tagaan isagoo halkaasi u sii diray ciidamo kale kadib markii halkaasi loogu shaki qabay ama lagu arkay qaar ka tirsan ciidamada dawlad goboleedka Waqooyi Bari cabsi xooggan ayaa soo food saartay gobolka iyadoo suurtagal ay noqon karto in halkaasi ay isku farasaaraan ciidamada dawlad goboleedka Waqooyi Bari iyo kuwa Somaliland kadib markii ciidamada dawlad goboleedka Waqooyi Bari ay bilaabeen dhaqaaqoodii ugu horeeyay iyagoo horey madaxweynaha dawlad goboleedka Waqooyi Bari ee Firdhiye uu ku dhawaaqay inuu samarraba aqbaleen in la kala jaro ee dalka ayaa mar kale suuragal ah in halkaasi uu ka qarxo dagaal adag oo u dhaxeysa ee labada dhinac taasoo sabab u noqon karto inuu ka dhasho khasaare kala duwan oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac mar kale waxaa suuragal ah in fooda ay isdaraan ciidamada Waqooyi Bari iyo kuwa Somaliland kadib markii dhowr sano ka hor dagaal uu ka qarxay Laascaanood ay isku farasaareen sabarkaana beesha dhul bahantay la gooseen ee Laascaanood imikana waxaa la sheegay in xirigaabo ay ku sii socdaan iyadoo ciidamo ay ka baxeen Laascaanood iyo si la mid ah oo ay ka sii baxeen agagaarkeeda iyagoona ku sii wajahan xirigaabo kuwaas oo la sheegay inay doonayaan in halkaasi qalalaaso ay ka bilaabaan isla markaana ay qabsadaan gebi ahaanba arrimahan ayaa la sheegay in ay yimaadeen xilli xaalado ay cakran yihiin isla markaana Somaliland ay dadaalo ay ku jirto sidii ay u dejin lahayd reeraha kala ah jabhadda Ciisaha iyo si la mid ah Bangida Buursa oo ay kala hadasho arrimaha ugu muhiimsan ee ku saabsan gobolka iyadoona labada reerood ay doonayaan in midba midka kale oo la goosto maamul la kala yiraahdo Oodal Seed iyo Guban Seed soo dhaw daawada hadaan ugu cusubtahay subscribe saar channelka share like saar asxaabtada si gaarsii mahadsanid aynu guda galno ciidamada dawlad goboleedka Waqooyi Bari oo ka baxay xirigaabo oo ka baxay Laascaanood hande oo gaari ayaa la sheegay inay ku dhow yihiin xirigaabo halkaasi ay doonayaan inay gabi ahaanba ay la wareegaan kadib markii halkaasi ay gaareen guutooyin oo hor leh oo ka socda ciidamada Somaliland kuwaas oo la sheegay in halkaasi laga dareemay agagaarkeeda ciidamo ka socda dawlad goboleedka Waqooyi Bari ee dhul bahantay inay halkaasi ku sugan yihiin isla markaana ay doonayaan in halkaasi ay la wareegaan kadib markii halkaasi dhaqdhaqaaqyo culus ee laga dareemay ciidamadan ka baxay Laascaanood iyo deegaano kale oo Laascaanood hoostaga ayaa la sheegay inay qayb ay ka yihiin isla markaana ay doonayaan la wareegida sidii ay ula wareegi lahaayeen ee dhulka iyadoona qorshaha uu yahay sidii gabi ahaanba xirigaabo gacanta loogu dhigi lahaa isla markaana loo haysgeen lahaa ee dawlad goboleedka Waqooyi Bari iyadoo tani ay noqonayso xiisad hor leh oo lagu furayo ee dawladda Somaliland dhinaca waxaa ka socda Guban Seed oo ay doonayaan jabhadda Ciise isla markaana inay goostaan taa oo lagu sheegay inay samarraba suuragal ahayn iyadoo dawladda Somaliland ay wado dadaalo sidii beesha Ciise loo dejin lahaa isla markaana looga qancin lahaa arrimaha siyaasadeed iyo khilaafka ka dhex taagan ee dawladooda iyo shacabkooda iyaga ah kuwaas ay dawladda Somaliland hogaamiyo madaxweyne Ciro ay u sheegeen in loo baahan yahay in xaalku ay dejiyaan isla markaana xabad kaliya iyo dagaal aan waxba lagu xalinayn iyo si la mid ah kala tagid iyagoona u sheegay inay diyaar u yihiin inay dhageystaan dawladda Somaliland tabashooyinka kaga yimaada ee reerka Ciise dhinaca kale Gadabuurse ayaa wada iyaguna oo ay doonayaan inay goosaan Oodal Seed dawlad la yiraahdo inay la magac baxaan isla markaana ay hoosgeeyaan gobolkaasi xukuumadda federaalka Soomaaliya mar kale dawladda Somaliland ayaa iyaduna qayb ka ah fariimaha mid ay u dirtay reerka Ciise si la mid ah waxay u dirtay Gadabuurse isla markaana ay u sheegtay in loo baahan yahay in ka tanaasulaan fikirkooda Oodal Seed dawladooda mar kale ay diyaar leeyihiin waa dawladii iyagu wax ay ka dhiseen isla markaana ay dhageysan doonaan tabashooyinkoodii iyo waxyaalaha ay qabaan waxay sheegtay in loo baahan yahay in si degdeg ah ay u soo gudbiyaan dhammaan tabashooyinka ay qabaan taa oo la horgeyn doono madaxweynaha ee dawladda Somaliland Cabdiraxmaan Ciro isla markaana loo bandhigi doono qorshaha iyo waxyaalaha iyo tabashooyinka ay qabaan reeraha Ciisaha iyo si la mid ah Bangida Buursa ciidamadan oo gaar ahaan ay ka baxay Laascaanood iyo deegaanada kale hoostaga ayaa la sheegay iyo ciidamo kale oo beesha dhul bahanta ka socday oo ku sugnaa nawaaxiga og ayaa la sheegay inay u sii dhaqaaqeen dhanka iyo xirigaabo ee gobolka Sanaag
oo ay doonayaan in halkaasi ay la wareegaan isla markaana ay kusoo daraan dhulka oo iyagu oo ay ka armiyaan dhul bahaantaha isla markaana ay ka mid noqoto degmo hoosegta amaba magaalo hoosegta dowlad goboleedka waqooyi bari halkaasi oo ka socda dhaqdhaqaaqyo culus isla markaana u dhaxaysa labada dhinacba. ciidamada dowladda Somaliland ayaa la sheegay in halkaasi ay sii gaareen horeyna oo saaka taliyaha ciidamada Somaliland uu diray guuto hor leh kuwaas oo kadib markii halkaasi lagu arkay dhaqdhaqaaqyo culus inay ka wadaan ciidamada dowlad goboleedka waqooyi bari isla markaana ay doonayaan xogaha sirdoon ay la helaya ayaa sheegaya in saacadaha soo socdo ay suuragal ay noqon karto inay isku farasaaraan isla markaana ciidamada Somaliland ay heleen xogta ay tahay in ciidamada dowlad goboleedka waqooyi bari ay doonayaan in halkaasi ay ka furaan furin cusub deetana ay u sii fududaato inta halkaan lagaga mashquulsan yahay ee dagaalka mar kale reeraha xiisaha iyo si la mid ah Gadabuursa in halkaasi uga faa'iideystaan. laakiin arrintan ayaa hore ugu baarandegtay dowladda Somaliland iyadoo ay wado qorshayaal oo ka dhan ah waqooyi bari iyo Soomaaliya xukuumadeedaba isla markaana ay wadaan dadaalo xoogan odayaal ka socda caasimadda Hargeysa gaar ahaan matalaya dowladda Somaliland ayaa gaaray labada dhinac Guban State oo imika meesha gobolka loo yaqaano Salal oo ay joogaan reerka Ciisa iyo si la mid ah Boodal ayay kala gaareen odayaasha oo matalaya dowladda iyagoo dhinaca kale dowladda ay u dirweysay erga kale maadaama aysan doonaynin in xaaladda ay sii xumaato. waxaase loo diray odayaal nabadoonaha reeraha kale oo degaa Somaliland kuwaas oo loo sheegay in loo baahan yahay in walaalahooda tabashooyinka ay qabaan ay ka soo dhigeystaan isla markaana ay horgeyn doonaan madaxweynaha dowladda Somaliland Cabdiraxmaan Ciro si wax looga qabto arrinkan ay taagan. waxaase la sheegaa in tabashooyinkan ay yihiin kuwa aan xal laga gaari karin maadaama Gadabuursa ay aad u doonayaan xilal muhiim ah isla markaana ay doonayaan xubnaha ugu muhiimsan kuraasta ugu sareyso dalka ama kuraasta dowladda iyagoona si la mid ah si dhinaca kalena aysan ku qancin xilal hoose wali laakiin ay ka hayaan dowladda Somaliland. laakiin ujeedada rasmiga beesha Gadabuursa ay tahay inay doonayaan xilalka ugu sareeyo inay iyaguna dhinac ay ka qabtaan isla markaana si ay qayb ugu noqdaan dowladooda waa sida iyagu ay sheegeen. waxaase dhinaca kale beesha Ciise iyagana loo diray qaar ka mid ah odayaashaas oo iyagana ergo ka ah dowladda Somaliland iyo gaar ahaan madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro kuwaas u sheegi doono tabashooyinkooda inay u soo bandhigtaan isla markaana si loo horgeeyo madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro si wax looga qabto caqabadaha ka taagan halkaasi iyo si la mid ah sidii loo gaari lahaa guulo muhiim ah isla markaana looga hortagi lahaa xaaladda adag ee imika ay soo wajahday. waxaase la sheegaa in dhammaanba reerka Ciise aysan suuragal ahayn inay ku qancaan laakiin xalka kale ay ku qanci doonaan inay tahay in Guban State ay si rasmi ah u goosaan laakiin reerka Gadabuursa ayaa suuragal ah inay qaataan nidaamka dowladeed isla markaana dib ugu laabtaan haddii mid ka mid ah xilalka ugu sareeyo iyagoo loo daayo isla markaana si joogto ah looga dhigo inay ka qabtaan mid ka mid ah 7 xilal ugu sareyso Somaliland taas oo ay doonayaan Gadabuursa marka horena tabashadooda ahayd kaliya inay helaan xilalka ugu sareeya iyo matalaad rasmi ah oo reerkaasi inay ka helaan dowladda maadaama tan iyo sanadii 2010 iyo ka badanba aysan ka helin muddonkii 30 sanadood matalaad dhab ah waa sida iyagu ay sheegeen laakiin ay doonayaan markaan matalaad dhab ah inay ka helaan haddii suuragal ay noqon weysana inay la goosan doonaan maamulka isla markaana ay u baxsan doonaan Oodal ay ka dhigi doonaan dowlad hoostagi doonto xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Somaliland ayaa wada dadaalo xoogan isla markaana ay ka shaqeynaysaa sidii mar kale labada reerood loo qancin lahaa iyadoo dhinaca kale xiisadan la sheegay in gadaal ka riixayso xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ay doonayso in labadaas meelood ay la goosato Oodal iyo Guban intana ay dowlad goboleedka waqooyi bari ay ka galaan ciidamadooda isla markaana ay weeraraan Ceergaabo ee gobolka Sanaagna ay goostaan isla markaana ay la goostaan ciidamada beesha dhul bahaanti kuwaas oo la doonayo inay qaadaan dagaalo oo lagu doonayo inay mar kale ay ku soo celiyaan gobolka Sanaag oo dowladdu ay misantahay in wali dhulkaasi uu ka mid yahay dhulkeeda. waxaase la sheegaa in arrimahan iyo kuwa kale oo muhiim ah ay ka socdaan gobolka Sanaag iyo dhaqdhaqaaqyo culus oo ugu dambeysay iyadoo qorshaha ama si la mid ah targetka dowlad goboleedka waqooyi bari oo markaan uu yahay Ceergaabo qorshaha halkaasina ay tahay goobta kaliya ay ku qanacsan tahay beesha dhul bahaanti ay doonayso markaa inay qabsato iyadoo hadafkan uu yahay sidii gobolka Sanaag loo qabsan lahaa halkaasina Gadabuursa ayaa la sheegay erga ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya
in ay taqadka taleefanka ka wada hadleen odayaasha ugu muhiimsan ee reerka Gadabursa isla markaana lagu qanciyay in gobolkooda ay goostaan dowladda Soomaaliyana ay la garab taagan tahay dhammaan agabyada oo dagaalka iyo si lamid ahba kuwa caafimaadka oo dagaalka ay ugu qayb qaadan lahaayeen sidii halkaasi iskaga xoreyn lahaayeen iyadoo dhinaca kalena loo balan qaaday reerka Gadabursa kuraasta ugu sareyso oo wada maamulka cusub la dhisi doono iyagu lahaan doonaan xorna ay u noqon doonaan ciday doonaan ay wax ka siin doonaan ee maamulkooda si lamid ah Ciise ayaa loo diray iyaguna wafuud oo kala duwan oo khadka taleefanka kala xiriiray dhankooda iyaguna loo sheegay in gubanayseed ay la soo goosaan isla markaana ay ku soo biiriyaan dhulalka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka arrimisa isla markaana laga dhigo gubanayseed maamul goboleed hoosagi doono xukuumadda federaalka Soomaaliya taasoo loo sheegay in beesha Ciise halkaas ay ka arrimin doonto mar kale iyaduna xor ay u tahay maamulkooda si lamid ah boqortooyada ugu sarsareysana ay iyagu ka arrimin doonaan aano qashqashaad ka gali doonin iyadoo tan ay u muuqato markaan mid halis ku hay Somaliland ayaa u diyaar garowday dhammaan dagaalada oo soo socda isla markaana suuragal ay noqon karto in halkaasi ka dhacaan xogaha sirdoon oo la helayo ayaa sheegaya dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay oo ay iska kaashanayaan xukuumadda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Waqooyi Bari oo ay tahay isha kaliya oo maanta loogu duuli karo xukuumadda dowladda Soomaaliland loogu isla markaana ay tahay goobta laga abaabuli doono weerarada ka dhanay Somaliland halkaas oo ka socdaan qorshaha halis ayaa la sheegay in dowladda Somaliland ay ka gashay dhammaan heegan buuxa iyadoo gudaha Laascaanood la sheegay in laga helayo xogo oo dhaqdhaqaaqi ciidan military culus kuwaas oo la sheegay inay u diyaar garoobayaan weerar ka dhanay Somaliland iyadoo Somaliland ay gashay markaan heegan buuxa fariimo kala duwan ayaa gaaraya sirdoonka Somaliland kuwaas oo ku saabsan xaaladda amni ee dalka iyadoo tan ay noqon karto dagaal mar kale isku farasaaraan dowlad goboleedka Waqooyi Bari iyo dowladda Somaliland kuwaas oo sabab u noqon karto in halkaas ay ka dhashaan khasaaro xoog leh